fursada aad siinaysid waa run safar degdeg ah soo galay magaalada Addis Ababa caawa hadii la idin sii joogaya ka bacdina xamar baan u gudbayaa xamarna warbal ha tagin dhagahana furaysan joog warniyo waxa arin gaar ah oo aan uga maarmi waayay niman gudiyo aan hawshii Somaliland oo hawshii aan wada wadnay muddo dhowr sanaba ah yaa hadda kala maqan hawshiina waa noo dhowdahay waxayna aan ku ballansanahay dibadda 3 kamida 7 ay ku maqan yihiin wiig 10 cashay maqnaanayaan anna arintaasan xamar u aadayaa waxaan ku rajo weynahay markaan soo noqdo arinta in la kala tuuri doono waa jeclaan lahaa wax badan dadka reer Khaatuma arintan waa sugayeen meel fiican bay hadda maraysaa intaasaan u tagayaa wiig 10 casho ka bacdina hadii alla idmo halkan aan ku soo noqonayaa hawshaasuna meesha fiican bay hadda noo taala maya wax siyaasad ku shuqul laba ma aha wax xamar u aadaya wax gaar oo shakhsi ah oo personal ah yaanu aadaya halkan ay hawsheedu taala ya hawsha dadka reer Khaatumo iyadana u soo hadii alla idmo wiiga 10 casho aan maqnaanaya u soo noqonaya hadii alla musabixi iyo siilaan xisbiga kulmiye ahaan muusana wuxuu marka ahaa aanu heshiiska galayno gudoomiyaha kulmiye anana kulmiye iyo maamulka kulmiye aanu heshiiska la galay marka taas marnaba walwal kama aanan qabin inuu muuse fulinayo waqtigii baa runtii fursadii baana suurtoobi weyday gudidaas iyo haday wax baaqbaaqdeen حب فرسمة bay u baaqbaadeen wax lagu diidayo mabda'iyan ama aanu ka walwalsanahay ma